soo dhawaada Jalial, sheekadu waxay ku bilaabanaysaa shiishaan caan ah kaasoo awood u leh inuu dilo qof u jiro dhowr kiiloomitir xitaa isagoo indhaha ka xiran yihiin. laakiin shiishaanku wuxuu horey u ahaan jiray macallin xisaab, wuxuuna necbaa dagaalka iyo hubka. laakiin maalin maalmaha ka mid ah wax ku dhacay noloshiisa ayaa ku keena macallinkii wanaagsanaa inuu noqdo shiishaan aan naxariis lahayn. kadib sheekadu waxay ka bilaabataa tuulo yar oo ku tahay Ukraine, halkaas oo lanagu tusiyo guri yar oo ku nool yihiin lamaane ku faraxsan noloshooda. Mikola iyo xaaskiisa Nastia oo ahayd farshaxan sameey, halka Mikolana uu yahay macallin xisaab oo dhiga iskuul u dhow. wuxuuna ahaa macallin aad u fiican, ardayduna aad bay ugu faraxsanayeen marka laga reebo hal arday kaasoo magaciisa loo yiraahdo Afon oo ah wiil dhib badan oo maalin kasta dhibi jira macalinka. wuxuu kasoo jeeday qoys maalqabeen ah, halka Mikolana uu ahaa qoys sabool ah. sidaas daraadeed Afon wuxuu ku jeesjeesi jiray dharka uu xiran yahay Mikola, wuxuuna rabay inuu ka xanaajiyo oo uu garaaco si uu ugu dacwoodo oo looga eriyo iskuulka. laakiin Mikola wuxuu ahaa nin degan oon xanaaqin, hadallada Afon ma saameyn jirin, noloshiisana wuu ku faraxsan yahay. Mikolana ma helin wararka adduunka maadaama gurigiisa uusan lahayn TV ama qalab kale oo koronto ah. maalin isagoo iskuulku jooga ayuu TV-ga ka maqlay in ruushku uu soo weeraray Ukraine, isla markaasna ay dileen ciidamo badan, goobo badanna ay qabsadeen. galabkii markuu guriga yimid, xaaskiisu waxay u sheegtay inay ur u leedahay, aadna ugu farxaa warkaas. kadib labadoodu way u dabaaldegaan farxadooda. maalintii xigtay ayuu xaaskiisa macsalaamaya si uu u aado iskuul. markuu jidka marayay wuxuu arkay laba askari oo sigaar cabaya oo wata dhar ciidan oon ahayn kuwa Ukraine, una isilaamalaha dowladdu way bedeshay labiska ciidamada, sidaas daraadeedna umuusan sii fiirsan. markuu iskuulka galay wuxuu arkay iskuulka oo madhan, ardayduna aysan joogin. isagoo yaaban wuxuu markale TV ka arkaa in ciidamada ruushka ay gudaha usoo galeen Ukraine. hadda ayuu Mikola fahmay in labadii askari waa arkayay ay ahaayeen ciidamada ruushka, wuxuuna ka walwalay xaaskiisa oo guriga keli ku ahayd. isla markiiba wuxuu dib ugu laabtay baaskiilkiisa isagoo ordaya. laakiin goor dambe ayay ahayd markii guriga gaaray wuxuu arkay labada askari oo xaaskiisa si xun u garaacaya. Mikolana wuxuu isku dayaa inuu badbaadiyo, laakiin isagana way garaacaan, wuuna baryaa isagoo leh fadlan ha garaacina, xaaskayga uur ayay leedahay. laakiin way dhegaysan waayaan. markii dambe mid ka mid ah askarta ruushka ayaa gurigii baaray. markuu wax muhiima ka waayay wuu caroodaa, wuxuuna gubaa guriga. markay Nastia aragtay guriga oo gubanaya way carootay, waxayna ku tuurtaa dhagax. laakiin mid ka mid ah askarta ayaa togtay, halkaasna ayay ku dhimataa. Mikola markuu arkay xaaskiisa hortiisa ku dhimanaysa wuu orday, wuxuuna qaaday meydkeedii isagoo ooynaya. saacada kadib laba askari Ukraine ayaa goobta yimid. markay arkeen xaaskiisa oo dhimatay way u naxeen, waxayna u xaqiijiyeen Mikola inuu adkaysto. kadibna waxay u qadeen qabriga Nastia. markuu qabriga dhameeyay waxay u sheegeen inuu aaso xaaskiisa. markay xaaskiisu dhimatay Mikola wuu burburay, noloshiisuna way duntay. marka Mikola waxaa buuxiyay xanaaq iyo argoos, wuxuuna go'aansaday inuu dilo askarigii toogtay xaaskiisa wax kastoo ay ku qaadato. waxa kale oo ku heli karo aagudashadaas waa inuu ku biiro ciidamada Ukraine, wuxuuna ka codsadaa labada askari inay qaadaan, wayna ogolaadaan, waxayna geeyeen saldhigga ciidanka. kahor intaanu bixin wuxuu sii qaatay sanam yar oo alwaax ka samaysan oo xaaskiisa horey u samaysay. markay gaareen saldhigga, sarkaalkii sare ayaa ka carooday markuu arkay Mikola, wuxuuna uga shakiyaa inuu yahay basaas. laakiin labada askari waxay uga sheekeeyaan sheekadiisa oo dhan. Mikolana wuxuu sheegaa in askarta ruuska ay dileen xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo sidoo kalena gubeen gurigiisa, aysan jirin sabab usii noolaa, keligana uu doonayo inuu xoreeyo dalkiisa iyo inuu dilo askartaas. sarkaalkuna uu ka aqbalaa. maalintii xigta ayuu tababarka bilowdaa, maadaama uu ahaa nin caadi ah way ku adkaataa, maadaama xisaab dhigi jiray hubka wax aqoona muusan lahayn, halka askarta kale oo dhan ay ka wada dheereeyeen markii laysku ururinayo qoriga. sarkaalka ayaa u arkaa inuusan askari fiican noqon karin, laakiin Mikola wuu ku adkaystaa, wuuna dadaalaa. habeenkii oo dhan wuu sii shaqayn jiray isagoo tababar sameynaya. maalin ayuu Mikola u sheegay sarkaalkiisa sare inuusan rabin in magaciisa caadiga lagu yeero, balse loo bixiyo magaca dagaalka Rafen. askartii kalena way ku qoslaan, laakiin Mikola wuu ka xishoon waayay, wuxuuna bilaabay dadaal aad u fara badan. maalin sarkaalka ayaa u sheegaa inay yaraadeen tiradii snaybarska, ayna u baahan yihiin snaybaro cusub. kadibna askar badan ayaa istaagtay, Mikolana uu ka mid yahay. sarkaalkana wuxuu u sheegaa inuusan diyaar u ahayn, askarta kalena way ku qosleen isaga. laakiin Mikola wuxuu u sheegaa inuu diyaar u yahay, uuna fursad siiyo isaga. kadib sarkaalku wuxuu ku xujeeyaa haddii uu qoriga muskugu xirxiro muddo 20 ilbiriqsi ah in fursadda uu heli doono. Mikola ilaa ka xirxirana wuxuu bilaabaa inuu qoriga kala furfuro, kadibna uu iskugu soo xirxiro muddo 20 ilbiriqsi gudahood. qof walbana wuu la ama kaagaa. sarkaalkuna uu ku qaacay, wuxuuna u diraa tababarka snaybarska, laakiin waxaa la siiyey qori duug ah, halka askarta kale la siiyey qoryo cusub. sarkaalkuna wuxuu u sheegay inuu helayo qori cusub kadib markii uu muujiyey kartidiisa. Mikolana wuu ka aqbalay, wuxuuna bilaabay tababarka snaybarkuna wuxuu ahaa mid adag. sarkaalkana wuxuu xabado ku ridaa askarta si uu u arko inay ka dhaqaaqaan booskooda. qofkii dhaqaaqana waa laga reebaa tartanka. markii Mikola la gaaray xataa ma dhaqaaqin hal inji. kadib tababarka xigtay waxaa hal mar la tusay bartilmaameedkooda, kadib indhaha ayaa loo duubay iyagoo qiyaasi lahaa meesha bartilmaameedku yaal. qaarna way ku guulaysteen, laakiin Mikola si yar ayuu u dhumay sababtoo ah qoriga uu haystay ahaa qori duug ah. tababarka xigay waxaa lagu tababaray inay toogtaan bartilmaameedkooda kadib markii la shido faleerka, wayna ku wada fashilmeen markii laga reebo Mikola. isagu wuxuu adeegsaday aqoontiisa xisaabta si uu u qiyaaso masaafada, wuxuuna si fudud u garaacaa bartilmaameedka. sarkaalkana aad buu u farxaa, wuxuuna u bixiyaa magacii uu ka codsaday ee Rafen, waxayna sidaa u tababaranayn ilaa maalintii imtixaanka. Mikolana waa la ansixiyey, kadibna waxaa usoo baxay howlgal cusub. ruushku wuxuu qabsaday bar control. markay gaareen goobta waxay sugayeen ilaa ay arkaan gaaray. sarkaalka ayaa amray
sheegay inaan xabal la ridin. Askarta Ruushkana way joojiyeen gaariga, dadkii ku jirana way baarteen, kadibna baasaboorkeedii bay ka qaadeen. Markay codsadeen inay u soo celiyaan way garaacaan. Markaas ayuu sarkaalku amray in la toogto askarta Ruushka, waana la wada dilaa. Markay ku laabteen saldhigga, Mykola wuxuu dareemay in askartii badankoodu ay maqan yihiin, waxaana loo sheegaa in howlgal kale loo diray. maalintii xigtana waxaa soo baxday war sheegaya in dhammaantood la wada laayay, uuna dilkoodana ka dambeeyo sniper Russian ah oo xoog badan laguna magacaabo Siri, kaasoo ahaa sniperka ugu fiican Ruushka. maalmo kadibna Mykola wuxuu galay howlgal kale. markay miinooyin dhigeen ayaa ciidamada Ruushka yimaadeen, Afona uu ka mid ahaa, waana isla ardaygiisii oo horey ugu soo dhigi jiray iskuulka. markuu amarka helay, Mykola wuu ka lablabeeyaa, laakiin ugu dambeyntii wuxuu qarxiyaa miinada, halkaasna ay ku wada dhintaan uuna ku jiro Afon. kadib sarkaalka ayaa ku canaantay Mykola, wuxuuna u sharxay in Afon uusan ahayn ardaygiisa balse hadda uu yahay cadow. howlgalkaas kadib sarkaalka iyo Mykola way wada sheekaystaan. sarkaalka wuxuu tusaa sawirka qoyskiisa, wuxuuna u sheegay in gabadhiisu aysan ogeyn inuu askari yahay, halka Mykolana uu u sheegayo in xaaskiisa horey loo dilay. sarkaalkana wuu la murugooda. maalintii xigtana waxay u baxeen howlgal kale oo aad u muhiim ah oo lagu sheegay in ciidamo Ruush ay ka gudbi doonaan halkaas. markay gaareen waxay arkaan laba askari oo Ruush ah. Mykola wuxuu arkay mid ka mid ah inuu yahay ninkii toogtay xaaskiisa, wuxuuna weydiistay fasax inuu dili karo, balse sarkaalka wuu ka diidaa. wuxuuna mar labaad weydiistaa inuu dilo, laakiin sarkaalka sidoo kale wuu ka diidaa. laakiin Mykola wuu ka madax adeegaa, wuxuuna toogtaa ninkii. taas ayaa keentay in Ruushka ay ogaadaan goobta ay joogaan. Sirina uu joogay halkaas, wuxuuna toogtay sarkaalkii, halkaasna wuu ku dhintaa. Mykolana wuu gartaa qaladkiisa. ciidanka Ruushkana waxay bilaabaan weerar culus, wuxuuna qaadaa meydka saaxiibkiisa oo dib ayuu uga baxsadaa. wuxuuna gaaray saldhigga isagoona ka murugsan dilka sarkaalka, wuxuuna ku dhaartay inuu usoo argudi doono uuna soo dili doono Siri. dhowaan wuxuu helay xog muujinaysa laba sniper oo Russian ah, mid ayuu dilay, ka labaadna inkastoo dhaawac ka gaaray laakiin wuu dilay isagana. dibna saldhiggii buu ku laabtaa, halkaas oo meejarka u sheegay in sniperka dilay saaxiibkiisa uu ahaa Siri, sidoo kalena uu dilay 6 sniper kale oo Ukraine ah. wuxuuna filmaanka duubaa dilka askarta Ukraine si uu u najibiyo ciidanka, waana sniper aan booskiisa bedelin. waxaana la dejiyaa qorshe, laba kooxood ayaa weerari doona meesha uuna Siri ku jiro. kooxda koowaadna waxay weerari doontaa hortiisa, halka kooxda labaadna ay gadaashiisa kasoo weerari doonaan. Mykolana uu soo dhexgali doono si uu u dilo Siri. markay gaareen goobta, Mykola wuxuu qarsoodiya u galay dhismaha, wuxuuna dilay laba ka mid ah askarta Ruushka, kadibna wuxuu siiyey kooxdiisa calaamad. sniperska Ukraine waxay toogtaan askartii Ruushka. Sirina markuu arkay inaysan cidna usoo jawaabin, wuxuu fuulay saqafka, wuxuuna arkay sniper kale oo Ruush ah oo dhintay, wuxuuna fahmay in lagu hareeraysan yahay. kadibna wuxuu cod u dirsadaa ciidankii kale, laakiin waxay u sheegaan inay 10 daqiiqo qaadan doonto. intii aanu ka falcelin, Mykola ayaa kusoo booday oo mindi ku dilay. mid sniper oo dhismaha ku jiray ayaa maqlay buuqa, laakiin Mykola wuxuu ku tuuray bambaano wuuna dilaa. daqiiqado kadib, ciidamadii gurmadka Ruushka ayaa yimid iyagoo aan ogeyn in Siri uu dhintay. markay isku dayeen inay uga soo jawaabaan, Mykola ayaa ka qabtay oo uga soo jawaabay, wuxuuna toogtay darawalkii gaadhay. ciidamada Ruushkana waxay bilaabeen inay kala cararaan, sniperska Ukraine ay mid u dilaan. maalmo kadibna Mykola wuxuu tagay qabriga xaaskiisa, isagoo dareemaya inuu fuliyay ballantii horey uga qaaday, wuxuuna ku dhaartay inuu dalkiisa u adeegayo ilaa uu ka dhinto, wuxuuna ka tagay qabrigaas. filimkana halkaas ayuu kusoo dhammaaday.